horta niyahow Etoobiyaanka waxa keeno aan garanaynaa abdiisa waxa la yiraahdaa wixii daro ku dagaalamay nimankii Soomaaliya 17 sano dadka ku leeyahay oo xoolaha dadka ku dhacay kuwaas ay arkaysaan ninka wuxuu yiri maxkamada waxay xalaaleeyeen guriyihii والله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هذا فكرتي إذا مركان كهذا ديل كاس وحنو أركيا ديل قلدن runtii diin aan salka ku haynin laablakac baan u arkayaa aniga sida aabbaheed carabkiisa aan ka dhadhiminay aabbaheed gabadhaas wuxuu sheegay inay 14 sano inay jirtay caasha luul gabadha la yiraahdo 14 sano ay jirtay qaraabana kuma una lahayn Kismaayo gabadha timid yarta ee u timid wadaadada nimankaas wadaadada ee u timid waxay ahayd iska dil ma aha qofka markuu ku yimaado xataa in la baaro u baahan yahay ma qofkan caafimaad ma qaba sidee yahay qofkan hadalkiisu xataa waxa dhici karta gabadha iyada ruuxeeda inay kaalmo u baahneeday ba suicide ahayd in la isdishaba ay rabtay laakiin gacanteeda inay isku dishay aysan rabino oo markaas on bal arrintan ay iska fikirtay ma ahayn dilkaasu xaq ma ahayn markaan culimo badan aniga aan telefoon ku weydiiyay dilkuna waxa la dili karaa markii dawlad islaam oo wadan xakunta weliyul ahdigiina ma jiro waa koox yaroo meel qabsatay xukunkooda ma gaarsiisano meel kale marka aniga waxaan arkayaa xukun boob xukun waxaan arkayaa ii sheegay argagax xukun xataa diinta islaamka ceebaynayo xukun ma taqaanaa ummadda islaamka oo kale intoo islaamka ku dhaqanto ay leeyihiin war maxaa idinku dhacay islaamka meel baad uga dhacdeen markaas waxay ahayd gabadha haddii la diliyo iyo haddaan la dilaynba horta in dhakhtar la geeyey ahayd dhakhtarka uu soo baaro markaas ka bacda xataa gabadha xaq waxay u leedahay say diinta sheegayso in la baaro wakiil ay qabsato la ogaado waxa kan marqaati baa la rabaa waxay sheegaysa ka marqaati kaco wixii oo dhan ma aysan dhicin marka aniga fikradayda gabadhaas yarta ee caawa dhimatay oo aakhira jirto waxa xaq darra ayaa lagu dilay baan qabaa aniga بسم الله الرحمن الرحيم هذا أنا أم فكرتي ذا كهالله قبل دل كل الدلي دل آدي وقلدنا أيها هذا كذا أسكو الراعي ما دام قبل أي ولادة أوتمي أي تري ولا يفرح معي أما ولا يكف صدي أرنتاس واحد أرن قلدن بدك لا عن شيء وحوي أرنتاس ولادة ويكون قلدنا عين ما يسنجرين حكومة إسلامية oo ku qaadaysa qofka hadii uu dambi galo iyo hadii uu dambi galinba marka arintaas aan waxay la tahay arin aad iyo aad u falxun malayn maayo hadii gabadhaas ay ka dhalan lahayd reer fiican in la dili lahaa ama dilkaas loo la gaarsiin lahaa waxaan u malaynayaa in arintaas aad u qaldaneed ana fikradeeda reer fiican ahaan waxa ka wada haday ka dhalan lahayd qabiil weyn hadii reer fiican waxaan ka wadaa haddii ay ahaan lahayd gabar dadka meesha ku badan noocoodana ha ahaade qabiilkoodana ha ahaade lama dili lahayn waxaan waxay arintaas asaas aniga loo muuqataa dilkaas waxa waa dil aad iyo aad looga xumaaday qof walba bilaadan muslim iyo gaal caruur dad waaweyn qof walba aad ay ugu xumaaday qof bilaadan in dhagax lagu dilo aad wax looga xumaado waa ayadoonan lahaynin cadeymihii loogu talagalay in lagu cadeeyo qofkii falkan la geystay waxa waaye fal ragii geystay iyo dadkii ka dambeeyay la iskaga daba imaan doono insha Allah because qofkii gabadha masaakiinta xukumay waa in la ogaado qofka wuxuu yahay yaa u baneeyay conditionskii loogu talagalay in la fuliyo dilka noocaas qofkan ma hayo oo cadeyn aniga gabar waan dhalay wayla dhasheen gabdho badan marka hooyaan leeyahay qof walba hadii qof dumar wax qof aad looga xumaado waa qofkan oo dhibkan loo geystay qof bilaadan ama nin ha ahaado ama naag ahaado waa in aan asaas dadka bilaadanka loo gelin diinta aniga aad ayaa laga fiican yahay laakiin waa aqaanaa waxa basic marka waxa fiican in cadeymihii loogu talagalay iyo shuruudihii loo maro wax walba
gabadhan masaakiinta allah u naxariista hadda horta reerkeeda ayaan u tacsiinayaa allah u naxariisto annagoo dhan ay naga dhimatay gabadha aaway raggii dad ninkii oo lagu eedeynayay inay wax la samaysay ama ay because keligii qofku wax ma suubanin waa in laba qof la ahaadaa marka aawa qofkii kale wax lasoo bandhiga ma laha marka arrintaasi arrimo badan in oo lasoo bandhigo qof dadkii geystay falkan waa inay soo caddeeyaan gabadhan waxay u dileen iyo sharuudaha ay haysteen iyo qofkay ku arkeen iyo markhaatiyihii iyo wax walbo waa howl arrin aad looga foolxumaado waaye dadka islaamka ah iyo dadka soomaaliyeedna wax magaca ka dilaya waa arrimahan oo kaleeto waa wax aad looga xumaado allah u naxariista gabadhaas masaakiinta gabadhaas dilkeeda muran badan baa ka taagan aniguna maanan joogin meeshii hase haatee waxaa la raacaa hadallada meelaha ka soo baxa ama jaraa'idku ha qoro ama idaacooyinka ha laga maqlay iyadii markaynu hadalka sidaas xukunno ama iyagii aan ka jawaabo gabadhaas dilkeedu ma habboonayn oo mid waafaqsan sharciga ma ahayn dhowr qodob oo ah meesha oo aan xukun uusan ka jirin maleedsiya maalin boqolo qabsato ay ahayd iyada oo la leeyahay miyirkeedu ma toosnayn oo waxay ahayd qof miyirka wax ka qabto jiran iyadoo mar la leeyahay baahi baa jirtayo hab baahiyeed baa waxa kanu ku yimaadeen oo dhibaatadu waxay ka timi baahi awgeed iyadoo si qabiilnimo ka jidho meeshii oo meel deggan ayan ahayn mar kastaba wax lagu dilo ama wax lagu dhaawaco ama wax lagu kufsado intaasoo dhan markii laysku soo daro waxaa muuqanaysa ma ahayn wax sharciga islaamka iyo midka gaalada midna mid wax waafaqsan dilkaasu ma ahayn sidaas awgeed wassalaamu calaykum dilka anigu waxaan ka maqlay idaacadda siyaabo kala duwan baa loo sheegay waxayse ila tahay inay tahay arrin aad loogu degdegay waxaan u malaynayaa inay ka mid ahayd dadka aan hubaysnayn qabaa'ilka aan hubaysnayn inay ka dhalatay sidaa awgeedna ay fududaatay diliddeedu ayay aniga ila tahay anigu kolleyba uma arko dilkaasi inuu ahaa mid ku habboon ama wakhtigiisii jooga ama ma garanaysaa waxaaba laleeyahay gabadhu way soo dacwooto kufsi bay ka cabanaysay marka iyadoo aan teediiba wax la xallin ayaa lagu fuliyey kiis kaleeto oo degdega sidaa awgeed aniga mar walba wuxuu ila ahaa in ma garanaysaa gabadha xaaladeedu ay ahayd gef weyn oo laga galay soomaalida guud ahaan haddii ay ka dhalan lahayd halkaasna qabiil dadkooda ay magaalada ku degan yihiin inaan sidaas loo geli lahayn hadday ka dhalan lahayd qabiil hubaysan ama dadkooda ama magaalada ku badan hadday ka dhalan lahayd u malayn maayo in xaalad tallaabadaa la qaadi lahaa oo weliba sidaa fudud loo qaadi lahaa xataa haddii la qaado in sidaa degdegtaa loo fulin lahaa anugu malayn maayo mana loo fuliyeen